kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka aadaan oo kala shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah liiska magacyada ku qoran qaabka loo qaybiyay wasaaradaha qaybsiga nidaamka 4.5 iyo dadka lagala tashay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaynuna eegi doonaa koonfur galbeed iyo sida gaarka ah loo beegsaday faa'iidada ugu jirta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladda Mareykanka oo walaac ka muujisay magacaabidda Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Mansuur oo horey u soo noqday hogaamiye ku-xigeenka ururka Al-Shabaab haddana laga dhigay wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan liiska magacyada ku qoran qaabka loo qaybiyay wasaaradaha qaybsiga nidaamka 4.5 dadka lagala tashaday xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa keentay in wasiirada xukuumaddu aysan helin soo dhaweyn ballaaran iyo inay ugu yaraan helaan aqbalaad shacab oo ka timaada shacabka Soomaaliyeed dowlad goboleedyada oo inta badan tala iyo tilmaamid ku lahaa cidda noqonaysa wasiirada ka soo jeeda deegaanadooda ayaa markan waxba laga weydiinin in laga aamusay oo aan lagala tashanin waxa uga sii daran in golaha ay ku arkeen rag aysan isku wajibanaanayn oo lagu soo daray mowduuca guud ee dowlad goboleedyada iyo xukuumadda cusub gaar ayaan idinka haynaa sheekooyin xiise leh maantase waxaan eegaynaa koonfur galbeed iyo sida gaarka ah loo beegsaday faa'iidada ugu jirta madaxweyne Xasan Sheekh iyo waxay u dhimi karto dareenka iyo Soomaali heshiisa waxa uu dubdhaxaad u halolay uu xilka ku yimid Xasan Sheekh kadib guushiisina wuxuu safar ku tagay Baydhabo isagoo sheegay in dadka deegaanka iyo maamulkoodaba talada loo dhaafi doono oo aan la faragelin doonin muddo uusan xukuumadda soo dhisin waxaa magacaabidii xukuumadda furmay boog cusub oo ku saabsan aragtida hogaamineed ee Xasan iyo Xamse 4 cashir ayaana laga duwaangeliyay sida xukuumadda cusub oo ku saabsan koonfur galbeed koonfur galbeed muwaadiniinta jiilka labaad waxaa qaba in ka badan xildhibaanada federaal ee ka yimid deegaanada koonfur galbeed waxay sheegeen in qaabka xukuumadda Sheekh Maxamuud uu qaabeeyay wasaaradaha federaalka ay muujinayso in qalfoof ahaan loo ilaaliyay nidaamka 4.5 saqadiyad ahaan dadka deegaanadaas laga soo qaaday inay yihiin muwaadiniinta labaad baraha bulshada iyo warbaahinta kala duwan ayay ku faafiyeen macadda in Xasan iyo Xamse ay ka garaabi doonaan cabashada reer koonfur galbeed Kismaayo iyo Baydhabo miyay isku bedelmayaan inta badan xukuumaddii farmaajo waxay ku dhamaysatay loola maamulo kala dhaxeeya Kismaayo iyo hoggaankeeda oo ku xidhnaa Kenya waxayna ahayd arrin ka qarsooneen Soomaalida sabixidii farmaajo waxaa loo arkayay in cutubkaasi uu soo xidhmay saddex inkasta hadallo iyo madallo uu ka sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in Soomaalida dhexdeeda heshiiso xulashadii xukuumaddiisu waxay fariin aan diiranayn gaarsiisay Baydhabo waxayna ballamisay inay sii buuxiso booskii Kismaayo saddex dagaal xilli hore aftagareen oo haysta maamulka koonfur galbeed waxay uga dhigan tahay xukuumadda inuu haysto waqti hore oo isugu diyaariyay dagaal kaga imanaya Xasan Xamse iyo xukuumadooda balse safada dagaalka oo lagu beegsado ayaa laga dhaxarkay magacaabista Roobo oo uusan lafta gareen dhanka dhaxarkin xal nabdeed iyo mid deegaanba in dib loo abaabulo leeshiyadii Roobo ayaana khatar badan ka fikiraya taasoo gobolka Bakool u rogi karta gadada Xasan Sheekh Xasan oo albaab furay dowladaha dariska Soomaaliya nugushahay abni ahaan waa mid aan deganayn dalahaanna isma haysato waxaana marar badan dhibaatooyin ay ka jiraan xagga midnimada guud ee dalka waxaana fududayn dowladaha dariska oo ciidamadoodu dalka joogaan si sahal ah danahooda uga fushadaan xukuumadda oo cadaadis saaraya maamulada jira koonfur galbeed oo gacan ka doonatay wadamada dariska ma aha mid waqtigan la qariibsan karo dagaalanka awoodaha isdiidan ee dowladnimada Soomaaliya ayaa sii taxnaan doona tan iyo waqti aan la aqoonin in si degdeg ah uu saqiiro halayskii madaxweyne Xasan ayaa ah natiijada ficilo laga baaqsan karay taasoo keeni karta in koonfur galbeed ay hormuud u noqoto olole kalsoonida iyo dhammaan rabitaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya wax ku noqon doonta madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa u socdaalay Itoobiya diyaarad military ayaa ka qaaday Baydhabo isna gudaha Itoobiya wadahadal ku saabsan xagga ammaanka iyo siyaasadda ee u dhaxaysa dowlad goboleedkiisa iyo Itoobiya ayaa la aaminsan yahay inay ka wada hadlayaan ay sheegeen saraakiil ku dhow Laftagareen xilli ay isbedelayso xaaladda siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya doorashooyin madaxtinimo ay dhaceen 15 bishii May ee sanadkan una ku guuleystay madaxweyne cusub
xukuumaddana lasoo dhisay maalmo ka hor waxaa soo baxay dildilaac siyaasadeed oo ka xoog badan dhammaan isbedeladii siyaasadeed ee gobolka laga saadaalinayay. Sida muuqata, Itoobiya waxay bilowday tallaabo siyaasadeed iyo mid amni oo ku aadan waxa ugu yeedhay amniga qaranka Itoobiya kadib markii toddobaadyo ka hor weerar lagu qaaday gudaha dowlad-deegaanka Soomaalida, halkaas oo ay koox ka tirsan Al-shabaab gudaha u galeen iyo kooxo kale oo weheliya sida Itoobiya ku dooday. Itoobiya waxay sheegtay inay samaynayso aagga ka caagan dagaalka iyo kooxahan argagixisada, laakiin warkaas siyaabo kala duwan ayaa looga falceliyey. Xaalad kale oo tan ka sii horreysay waa dowladda Masar iyo Soomaaliya oo kasoko uu si cad u sheegay madaxweynaha Masaaridu inay ka wada hadleen xaqa difaaca ay Masaaridu leedahay, taasoo isku hayaan Itoobiya. Loolanka siyaasadeed ee ka jira gudaha Geeska Afrika ayaa saldhig u noqonaysa Soomaaliya. Maantana waxaa la xaqiijiyey kumanaan ka mid ah militariga Itoobiya ay ka gudbeen xuduudda Soomaaliya ee gobolka Gedo oo ay gudaha u galeen. Inkastoo aysan jirin faahfaahin dheeraad ah iyo jawaab ka timid dhinaca federaalka ee Soomaaliya, haddana ilawareedyo ayaa tilmaamaya in kooxaha militariga ee gudaha Soomaaliya u tallaabay doonayaan inay saldhigyo ka samaystaan qaybo ka mid Gedo, Baay, Bakool iyo Hiiraan, goobahaas oo dhammaan ay ku sheegeen inay ka sugayaan ammaanka dalkooda. Wafuud ka socota Itoobiya ayaa toddobaadkan booqday Hargeysa, Beledweyne, Baydhabo iyagoo ku wajahan Puntland. Maana waxay Itoobiya ku sheegtay inay ka wada hadleen arrimaha ammaanka iyo sidii iskaashi dhow loo yeelan lahaa. Itoobiya 5tii sano ee lasoo dhaafay xidhiidhka siyaasadeed ee la leedahay Soomaaliya waa uu hooseeyey marka laga hadlayo dhinaca dowlad goboleedyada. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa marar badan ku faanay inuu faragelintii ka daayeen Soomaaliya. Ha yeeshee, imaanshaha iyo isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya ku dhacay waxa uu mar kale dib u soo celiyey faragelintii Itoobiya ee gudaha Soomaaliya. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyey. Qaarkood ayaa u arkaya tallaabo qariska xoornimo ah oo Itoobiya ay qaaday. Inkasta oo dowladda Soomaaliya aysan weli tafaasiil ka bixin dhacdooyinka isbedbedelaya ee xaaladda siyaasadda Soomaaliya, haddana waxaa la aaminsan yahay in labada dhinacba uuna wanaagsanayn xiriirkoodu. Kadib isbooqashooyin aan suuragelin oo la isku dayay, Itoobiya waxay si weyn uga cadhootay sida la aaminsan yahay magacaabidii la taliyaha amniga qaranka iyo agaasimaha NISA oo labaduba ahaa xubno si cad uga soo horjeeday Itoobiya xilligii uu socday dagaalkii u dhexeeyey TPLF iyo Abiy Ahmed. Sidaasoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa marar badan horey u dhaliilay Itoobiya, gaar ahaana ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo uu sheegay xilligii ay socdeen dagaaladii ka socday waqooyiga Tigray inuu dagaalo dalkiisa geliyey. Dhacdooyinka siyaasadeed ee sida fudud isu bedelaya ee Soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelan doonaanba dhinacyo kala duwan ayaa faalayn looga bixinaya. Mustaqbalkase waxaa la hubaa in Soomaaliya ahaan doonto. Dowladda Mareykanka ayaa niyad-jab ka muujisay in hogaamiye ku-xigeenkii hore ee ururka Al-shabaab Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Mansuur loo magacaabo wasiir ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Ilo diblomaasiyadeed oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u sheegay warbaahinta in tallaabadani ay caqabad ku noqon doonto taageerada caalamiga ah ee la siiyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Xukuumadda Washington ayaa sida ilahani dhanka diblomaasiyadda ay sheegay waxay ka walaacsan tahay saameynta xun ee arrinkani uu ku yeelan karo taageerada Koongareeska Mareykanka. Heerka soo baxay sanadkii 1997 ayaa mamnuucaya in Mareykanka uu taageero dowlad kasta oo cilaaqaad toos ah iyo mid dadbanba leh kooxaha argagixisada iyo ku xadgudubka xuquuqda aadamaha. Sharcigani ayaa waxa uu horseedi karaa shaki ah in maamulka cusub ee la wareegay talada Soomaaliya, isla markaana uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, uu waayi karo taageerada maaliyadeed iyo midda dhaqaale ee uu ka helo dowladda Mareykanka. Ilahani diblomaasiyadeed ee ka tirsan Mareykanka waxay sheegeen in mas'uuliyiinta Washington ay hadda ku mashquulsan yihiin sidii ay wadaxaajoodyo uga yeelan lahaayeen go'aanka ay ka qaadanayaan tallaabada ay qaaday dowladda dhexe ee Soomaaliya, isla markaana golaha wasiirada loogu soo daray Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Mansuur oo soo noqday hogaamiye ku-xigeenkii ururka Al-shabaab, laakiinse isu soo dhiibay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Mareykanku waxa uu qayb weyn ka qaatay taageerada la dagaalanka argagixisada ee Geeska Afrika, isaga oo ka taageera dowladda Soomaaliya tababarka iyo qalabaynta ciidamada gaarka ee danab, kuwaasi oo furmaha dagaalka si weyn uga hortaga kooxda Al-shabaab.
isla markaana la howlgala ciidamada dowladda Mareykanka. Ma dhici doonto in dowladda Soomaaliya ay taageero dhaqaale iyo mid militari ka hesho Mareykanka sababtoo ah taasi waxay jebinaysaa sharciga federaalka Mareykanka, ayay raaciyeen ilahani dhanka diblomaasiyadda ee soo xigatay warbaahintu. Haddii ay tani dhacdo, dabcan waa tallaabo si weyn u wiiqi doonta ololaha la doonayo in maleeshiyada Al-shabaab looga sifeeyo goobaha ay ka maamulaan dalka, xilli ay haatan bilaabeen kusii fidiyaan dalalka la deriska ah Soomaaliya sida Itoobiya iyo Kenya. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii kooxdani argagixisadii ay weerar ku qaadeen magaalada Aato ee xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya, isla markaana ay deriska ka yihiin dowlad deegaanka Soomaalida iyo gobolka Boqol, taasi oo keentay cabsi weyn oo dhanka amniga ah. Walow xaaladda isla markiiba la xakameeyey sida laga soo xigtay ila wareedyadan, dowladda Mareykanka ayaana sidoo kale raalli ka ahayn xubno kale oo ka mid noqday golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo aysan u arkin inay ka shaqaynayaan danaheeda. Marka laga soo tago walaaca dowladda Mareykanka oo ay xilligan qabto magacaabista Sheekh Mukhtaar Roobow, waxaa tani ay ku soo beegmaysaa iyada oo si weyn loogu kala qaybsamay xukuumaddii uu dhowaan soo dhisay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre, ka gadaal muddo ku dhow 40 cisho oo laga sugayay inuu soo dhiso xukuumaddiisa, waxaana si lama filaan ah uga soo mid noqday golaha wasiirada ama looga dhex arkay Sheekh Mukhtaar Roobow. Kii ugu horreysay ee la arkana isagoo ka mid ah golaha wasiirada. Dhinacyo badan ayaa aaminsan in Mukhtaar Roobow uusan weli ka tanaasulin fikradihiisii argagixisanimada, isla markaana uu yahay nin dambiyo xooggan horey u soo geystay. Kaas ayaa warkeena ugu dambeeyay, sidaas iyo nabadgelyo.